sameynay harvesting waxaan ku sameynay caws loo yaqaano alfa garaas cawskaas oo ka mid ah dalagyada in badan iyo waqtiyo badan laga faa'iideysan karo haddii lagu dadaalo cawskani waxaan harvestingkiisii koowaad sameynay 4 isbuuc ka hor waxaana harvesting lagu sameyn karaa 4 isbuuc ilaa 3 isbuuc laakiin anaga 4 isbuuc ka hor ayaan harvestingkiisii koowaad sameynay maantana waxaan sameynaynay harvestingkiisii labaad cawskan waa qalajinaynaa markaan harvestingka maanta sameyno kadib waan qalajinaynaa markaan qalajino kadib waxaan u diyaarinaynaa hay ahaan oo anagoo u isticmaalayna qalab loo yaqaano annual hay baler loo yaqaano anagoo isticmaalayna muhiimadan cawskan aan u beernay aan harvesting ugu sameynay waxaan rabnaa inaan storage gareeno si aan hadhow ugu isticmaalno xilliga abaaraha la beeray nooc ka mid ah noocyada calafka xoolaha oo loo yaqaan alfa scientific ahaan waxaa loo yaqaanaa Mendicaco sativa marka calafkaas xoolaha waxaa ku badan borotiinka ku badan tijaabooyin ayaan ku sameynay anagoo fiirinayna sidoo ula qabsan karo maxaa yeelay calafkan dhulka iyo cimiladan maadaama uu yahay mid exotic oo ka yimid maxaa yeelay wadamada kale markaas oo high protein fiican leh markaas runtii tijaabadu waa tijaabo aad u fiican oo lagu tijaabinayo cooskan loo yaqaano alfa garaas kaasoo muhiim u ah markaasi quudka xoolaha kaasoo ka qayb qaadanaya inay naaxaan inay wax fiican soo saaraan oo caano ah maadaama cooska uu yahay coos aad sareyso nafaqa borotiinkiisa aad u sareeyo kuna fiican xoolihii waddanka ahaan markaan ka hadlaynane cooskan wuxuu muhiim u yahay in brobleemka hadda daaqxumada naga haysato waddankeenna maadaama coosaskii hore oo waddankii ku yaalay ay yihiin kuwa markaasi aan lagu samaynin wax improvement ah muddo fog haddana qaabka ay yihiin wax hadda technical xataa improvement aan lagu samaynin haddana adduunyada aad ay u isticmaasho coosaskan casriga ah sida alfa garaaska marka muhiimadda jaamacadda ay u leedahay iyo waddanka waxa waaye in la soo saaro cooskan alfa garaaska in la soo saaro haddana leesu dayo marka in la isticmaalo asaga maadaama uu yahay coos sanooyin badan jiraayo haddii si fiican loo xanaaneeyo oo mar walba harvesting lagu sameynaya tusaale ahaan oo kale 4 isbuuc ka hor harvestingkii koowaad lagu sameeyey immediately markii biyihiisa iyo wixiisa la siiyey haddana booskiisuu ku soo laabtay haddana harvestingkii labaadaa lagu sameynaa insha allah for 3-4 weeks haddana waxaan rabnaa harvestingkii kale inaan ku sameyno marka calafkan xoolaha wuxuu faa'iido badan ka tari doonaa abaaraha soo noqday waddanka Soomaaliya in lagu guuleysto oo maxay ahayd inta la sameeyo xilliyada guga ah oo wax badan la beero ka bacdina storage la sameeyo oo la keydiyo si xilliyada abaarta ah oo faa'iido badan u yeesho markaas oo si fiican uga faa'iideyso faa'iidooyin badan oo leesho marka waxaan rajaynaynaa waa tijaabooyin sii socon doona oo markasta ka qayb qaadan doona ardayda mataqaantaa inay sii wadaan annaguna mataqaantaa aan hagi doono oo sida saxda ku hagi doono